taliya kuna soo dhawow ciidankii iyo waxaadna leedahay wixii amar iyo maamirana waa qaadanaysaan taliya ku soo dhawow ciidanka aagga hore ee furinta gobolka Cayn saad ula socotay difaacyada soo martay sida difaacu noogu xidhan yahay ama aanu haysano waajibaadkayga shaqo indhaha aad ku aragtaa waddankan duruufo badan iyo xaalad badan ayaa ciidankan ku soo shaqeeyay waxa ay waqti laftooda bixinayaan dhiiga u shubayaan waa dalkooda iyo dadkooda iyo saraftooda iyo cirdigooda inay ku ilaashadaan saakana aagii difaacyada oo soo martay taliye gobolka Cayn halkan waxaa tuban qayb kamida saraakiisha ciidanka iyo cutubyo kamida ciidanka waxa ku leenahay taliye ku soo dhawow ciidankaagii difaaci ciidanka ku soo dhawow waxaan ka rabnaa inaad halkan wixii aad noo siday iyo wixii amaamiira aan u kala qaadano horena ugu shaqeynay amaamirtii la faray haddana aan ku sii shaqeyn doono diyaarna waxaan u nahay cid kasta oo isku dayda deegaanka SSC inay xadgudub ku soo samayso inaanu 10 u dhigno kii aan u dhigi jirnay ilaa meelaawaanka inaanu waliba jibaarno horaa wuxuu oran jiray nin aslamta ka tirsan oo muuse muxuu ahaa kii xukumi jiray odaygii baasta macaan miyaa la oran jiray hadba waa teena raawis noqota tii raawis noqotay la aragii waxaan leenahay bal soo soofaysa maanta inay wax kugu goyso waxba ha la hadhin taliya xaaladaha jiidaha waa ka warhaynaa 24 saac meelahan lagu sheegayo maleeshiyaadka sahan baan ku tagnaa bulugud coodan le qabri hulul muraayada balcanan le waanu ognahay saacad walba wixii ku sugan iyo xaaladda ay ku joogan iyo waxa ka jooga haddii ay isku soo dayaan inay deegaankayga soo farageliyaan ama soo aadaan waxay la tahay taariikh labaad bay doonayaan cusub oo kale bay nagala kulmi doonaan anagu sidii horeba ama madaxda ama ismada dhaqanka ama maamulka SCU yiri annaga iyaga xakameeyada xuduud noo dhigay inaan macnaha magarasay xadkayga iyo xuduudeeda aanan dhaafin kayga baan ku suganahay cid kasto isku daydana talaabo cad aan ka qaadanaa aanan cidna uga daba fadhiisanayn cidna ka wada su'aalna waxay tahay war fardala soo ayay isku ma faane soo daawaan leenahay wiilkan saxaafadda iyo miidiyaha iyo meelaha iyo gabdha yaryar waxaan arkay meelaha qurugud iyo baligi dabaysan inta laga soo duubo buu hoodlo kal shaalowda haye hayla tahay baliga in la garanayo cid walba inay garanaysan ma yahay magacaabi maayo qurugud iyo baligana way soo garanayaan inta isu jiraan qof walna waa garanaya hayla tahay cidii tamar ku hadhay soo wad baan ku leenahay anagu waa celcelinayna ciidanko waxaan leenahay insha Allah laakiin iyaga iska imaan doone hadiyadii wad iska heli doontaane sugan leenahay suga waxba maatooyinka intaan u tagna ka nixin maynee xooga Muuse u soo dhib hadiyada iyaga inoo keenay doone fadhigeena iyo xuduudkeena ayaan ku sugi doonaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan ku suganahay jiida hore ciidamada xaqdarka SSC difaaca deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan heegan buuxa ugu jirnaa difaaca deegaanka halkan waxaan baaq uga dirnaa dhammaan ciidamada deegaanka SSC inay heegan buuxa u galaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen nabadgelyada deegaamada SSC iyadoo aan cidna lagu xadgudbahayn deegaankeenna iyo dalkeenna iyo ciideena inaan difaacano sidii horeyba aan ugu xaqiijinay amniga iyo nabadgelyada deegaamadeenna ee aan uga ciribtirnay cadowgii ku soo duulay ee muddada dheer ku sugnaa ee aan muddada dheer abhinaynay inay deegaamadeenna si nabadgelyo uga baxaan markii ay diideenna waajibaadkii xaq ahaa aan ka gudanay waxaan kaloo u sheegayaa maamulka Soomaaliland waxa fiican aqligooda inuu shaqeeyo oo ay
ku sugnaadaan deegaanada ay xaq u leeyihiin habeen iyo maalin waxaan diyaar u nahay heegan buuxa ugu jirnaa inaan difaacayna iyo deegaankeenna ilaashano ma jirto cid aan ka yeelano inay tallaabo hore ugu soo qaado deegaankeenna oo aan ku siinayno shacabka deegaamada SSC waxaan u sheegayaa inay kalsooni buuxda ciidankooda ku qabaan ku seexdaan ku nagaadaan ina habeen iyo maalin ciidankooda heegan ugu jiro waxaan diyaar u nahay cid kasta oo xadgudub ku samaysa deegaankayaga inaan tallaabo sharciga ka qaadno Muuse Biixi waxaan u sheegayaa in badan baa lagu lahaa Muuse ciidankaaga dib ula bax waa diiday waad ogeyd oo tii kaaga dhacday hanta harubla inay kugu dhacday oo maanta ciidankaaga habqankiisa aad ururin laadahay haddii aad tallaabo kale oo tii oo la mid ah aad soo qaado tii mid ka daran baa kugu dhacaysa waxa la gaal iyo islaam nabad oo gogol nasteexad marse haddii colaad loo guntada goray ma laacdeen midun baarisaasku uga beegeeba ma lahayn adeer waxaan ku sheegaynaa nabadgelyada haddaad adigu diido annaguna waxaan ku falanaa male deegaankaaga ku sugnow dhulkayaga iyo deegaankayaga amnigiisa iyo dawladnimadiisa iyo nidaamkiisa annaga waajib naga saaran yahay dawlad baan u samaysanay madax baan u dooranay yadaanu ku qanacsannahay cid kale oo aanu doonayno deegaankayaga inay soo farageliso ma jirto waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa dawladda federaalka Soomaaliya mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa xukuumaddiisa sida wanaagsan ee sharafta leh ay u soo dhaweeyeen maamulka xaqu-dirarka SSC waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa madaxda sharafta leh dhammaan SSC guuliyo gobonimo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar